دولة فدرالك الصومالية أنا مدحونا أنكأه waxay u hoggaansan tahay dastuurka hadda jira intii suurtagala waxyaabaha dastuurka in laga dastuurka ilaa aayaad oo munazal oo ilaahay soo dejiyay maahe shalaba annaga waa heshiis bulsho waxa la yiri shalaba annaga sidaan ku heshiin haddii maanta dhowr iyo 10 sano markuu jiray ka bacdi meelo galdalool ay ka soo baxeen waa saxeena maantaan iswarsanayna qadiyadan see ka yeelna saanaan ka yeelaynaa sidii aan isdhahnaanan yeelaynaa Soomaaliya hadana laakiin caqligayga iyo rabitaankayga iyo rabitaanka qof kale iyo rabitaanka koox kale dalkaani meel uguma tagaayo uguma soconaayo dawlad goboleedyada dalka jiro dhan annaga waa dawlad goboleedyadeennii waa soo dhawaynaynaa waa la shaqaynaa taladay leeyihiin kama jiidanayno gooni midaan u faquuqayna iyo midaan jeebka soo gashanaynaa ma jirto waxaan rabnaa inay talada ay nala gaaraan markay nala gaaraan meesha kale ay leedahay talada haddana inaan sii geyno oo meesha kale ay leedahay sii geyno ilaa ay soo aftaranto la yiraahdo alla ilaahay waa arrinkan waa arrin laga tashaday oo la wixii waxa oo golaha aan hadda sameynay dhaxdiisa looga shaqeeyana waa heshiisyada siyaasadeed iyo heshiisyada bulsho iyo wax lamida inaan soo xayndaab inaan soo sameyno frame waxay ku dhex jiray oo dhan dadka iska lahay inay u tagaan markaa hadday dhaqaale tahay hadday arrimo bulsho tahay hadday ciddii farsamo iyo khubaro ahayd annagu khubaro ma ahayn ciddii arrimahaas khubarada ku ahayd inay inta u tagaan ay ka soo tala bixiyaan ay yiraahdaan sidaana loo kala leeyahay sidaana loo nambarinaya sidaana loo waxaynaya ka bacdina hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha kaloo kusayso oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba leh inay tagaan arrimaha dowlad dhisidda waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waa ka daafur oo binaankana waa furannahay albaab noo xiran iyo qadiyad gaara ma jirto Soomaaliyada maanta joogta maxaa ku san ayaan ka hadlaynaa Soomaaliyada 2050 iyo 2060 jiri doonto ma ka hadlayno maxaa ku san midda maanta joogta 2023 2025 2026 middan soo 10 sano soo socoto kale maxaa ku san 10 sano ka bacdi konstitutionka dib ha loo eego waxyaabaha qaarkood shuruucda dib ha loo shuruucda kale oo dhan joogto waayba dib u eegistooda oo mar walba soo kartaa laakiin konstitutionka kale in la yiraahdo 10 sanaba mar dib u eegis lagu sameeyna oo guddi yar inta loo saaro oo la leeyahay bal qodobada qaarkood dib ha loo soo eego marka inaan soconaan rabnaa sharci dastuurkeena iyo shuruucdeena sida aan hadba annaga u horo dawladnimadeena u kobcayso ay ula kobcayaan maanta ma sameyn karno wax kasta oo wax ugu fiicnay oo aan jecelnahay waxaan ugu dabaqanta mahmaahdii ahayd maxaasan maxaa suuraabaa ka roon wax badana qurxoon dal barwaaqaysan wax walba leh maxaan ku yiraahdaa inaan ahaano waa sida san federaaleynta garsoorkuna waa socotaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan xuquuqdooda in la wada ilaaliyaan rabnaa colaad iyo cunfi colaad iyo cadow aan shabaab ahayn oo dawladda Soomaaliya ay leedahay ma jirto inta kale oo dhan lama dirsanin nin siyaasi oo meel taagan waa qayli karaa qola xagga waa ka qayli kartaa laakiin qolo walba waxaan rabnaa inaan garabka u raaricino oo dhahno walaalayaal maxaa dhiilaydan maxaa idin dhibaya inaan dhahnaa rabnaa oo waxa dhibaya intaan kala garanno kala fadhiisana hadday run yihiin dhibka aan ka dhaafno haddii ayan ahayn ismoodsiiyeen inaan u sheegno dhahno war dhib ma ahana waad ismoodsiiseen hagaaga dadka Soomaaliyeed baaq guud oo u diraya waxa waaye nabad walaalayaal waxaan nabad iyo heshiis aan ahayn ma anfacayaan Soomaali heshiis aan ku baaqnay waa naga dhab baydhabo gogol nabadeeda ka furan laascaano gogol nabadeeda aan ku baaqnay welina waa ku sii baaqaynaa in ay nabadi ay ku soo waxaysanto meel kastoo kale ay colaadi ka jirto oo na sidoo kale ayaan ugu baaqaynaa raalli kama ahin kuma faraxsanin dhiig Soomaaliyeed oo daadanayo meel kasta uu yahayba ummadda Soomaaliyeed dhaqanka suubanayoon lahaa jirnay iyo odayaasheenna iyo dhammaan war nabaddu qofna wax kama bi'iso
qofna ma disho qofna ma dhaqaala tirto qofna ma karaama tirto laakiin colaadda waa ku dilay waa ku karaama tiray nimaadan baryi lahayn inaad baryay midaadan magan u noqon lahayn inaad magan u noqonay midaadan kaalmo weydiisan lahayn inaad weydiisanay midaadan isku ra'yi ahayn oo xumaan iyo qaabdarro iyo walax alle iyo islaamku aanu raalli ka ahayn weligiis ku dhex jirayaad maciin bidee aad kaalmo u doonanay ha aadin ka adkayso oo u adkayso waxba kaa dhibi maysee walaalka kaa soo horjeedo walaalow iyo inaad kari karta raalli ahow waa kaa qaldanay anaa kaa gardaray raalli ahow waa qodob kaama gardarni walaalow laakiin haddaa idhibsatay raalli ahow ayadana waxba kaa dhibi mayso waxayna kuusoo kordhiso kumana liidanaanna kuma geynaysee karaamo iyo sharaf iyo waxay kuu keenaysaa wanaag dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa nabadda inay qaataan nabaddana ay ka shaqeeyaan waxaa kale oon rabaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee siyaasadda heer federaal iyo heer dowlad goboleedba joogaba ayagana waxaan ugu baaqayaa nolosha wax kasta siyaasad ma aha siyaasaddu waa muhiim waa talada meesha ay ka go'do laakiin wax badan oon siyaasad ahaynaa jire yaanan siyaasadaynin meesha ay leedahay siyaasadda aan geyno aanan ku hayno meeshaas yaanan intaan soo daadejino gedda guryaha iyo qoysaska iyo xafiisyada hoose iyo meelaha iyo qabaa'ilada iyo degaanada iyo yaanan dhex keenin wayna dhibay waynana fidnaynay meesha ay leedahay aan ku hayno oo soomaaliyay qabiilkuna meesha uu leeyahay aan ku hayno reer qurac iyo reer qansax oo dalka geeskaas iyo geeskaas ka degan waa midda aan sheegayno shu-uuntooda gaarka ahay u madax bannaan yihiin talada guud ee dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ka dhexayso dhanne wakiilay usoo dirsadeene wakiiladooda ha ku kalsoonaadeen oo waxa ay rabaanna ha soo marsiisteen weliba ha usoo dhiibteen meesha lagu gaaraya talada federaalkan ka hadlayaaye oo dadka soomaaliyeed oo dhan wada gaarayso hadday tahay siyaasad hadday tahay amni hadday tahay dhaqaale hadday tahay arrimo bulsho hadday tahay war wakiilaad soo dirsatay oo aad tiri ii tag meesha lagu haayo talada soomaalida ka dhexayso ii tag aad tiri waa joogaa waa dad maxaan ku rahday dheergarad ah wax yaqaano wax fahamsan bas maxay u baahan tahay adigaan ku kalsooneen oo dhinac cararayo ninkii aad soo wakiilatay ayaad haddana feer cararaysaa aad gol socotaa waxyaabuhu meelaha inoogu hagaagi lahay inay ka mid tahay war waa 4 sanaad soo dirsatay hadduu xumaado xataa oo 4tii sano waxaad rabta uu fuli waayo 4 sano dambe mid kale soo dirso iska dhig kii kugu xumaaday laakiin yaan la gol ordino ana wixii isaga keen dhex yaacin wixii yaani isaga keen dhex yaacin oo dadkii mas-uuliyadda loo dhiibay iyo mas-uuliyaddoodii yaanan ku macno tirin aan ku ixtiraamo waxba ma ahid adiga waxba ma ahid kale lay leedahay le maxaa markaas labadaas marka la isku daro maxaa ka imaanayo waxba ma ahin kulligeen meeshaas yaanan imaanin waa waxa muxuu ahay afka qalaad lagu dhahay zero sum game cayaar kusoo gabagabowda dhammaanteed markay socoto zero yaanan ka shaqaynin walaalayaal nabad aan ku baaqaynaa heshiis aan ku baaqaynaa soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah